dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay weheliyeen labada gole ee maamulkiisa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud International Airport ee Baydhabo ku soo dhaweeyay wafdi uu horkaciyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiye Mursal ayaa safarkiisa ku wehelinayay xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed Soomaaliya socdaalka wafdiga ayaa ka qayb sanad guuradii labaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya taas oo ku beegan 19 Diseembar 2020 magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa laga dareemayaa soo dhaweynta iyo u diyaar garowga xafladda lagu taageerayo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo maalinta biritaan ka dhacaysa magaalada Baydhabo wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa Baydhabo ayaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa daraawiishta koonfur galbeed oo gaafureegaya xaafadaha qaar ee magaalada Baydhabo kuwaasi oo xaqiijinaya amniga guud ee magaalada Baydhabo maalinta berita ayaa lagu wadaa in madax ka socda dowlad goboleedyada beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay soo gaaraan Baydhabo si ay ugu qayb galaan taageerida madaxweynaha koonfur galbeed oo 2 sano jirsaday markii loo magacaabay xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya dadka ku sugan Baydhabo qaarkood ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay sanad guuradii ka soo wareegatay markii la doortay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xilligii doorashada magaalada Baydhabo ay ahayd goobo ay ka dhacayeen dagaalo iyo dibadbaxyo kaas oo waxyeelo badan ka soo gaartay dad shacab xilliga doorashada dhacisay ayaa shacabka ku nool Baydhabo intooda badan waxay ahaayeen kuwa si weyn uga soo horjeeda hanaanka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo majaraha u hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse hadda ayaa la sheegayaa in dadka intooda badan ay si tartiib ay ula qabsadeen maamulka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen xilli كامبيتك uku jiray Laftagareen laftiisu u ballanqaadi fara badan u sameeyay shacabka ku nool deegaanada maamulkiisa lana sheegay in ka badan uu ka soo baxay haddana uu sii wado sidii wax badan oo ugu qaban lahaa shacabka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya munaasabada ka soconaysa ama u diyaar garowga ayaa waxa ay tahay tii labaad ee si xiriir kaga dhacda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay balse shacabka qaarkood ayaa waxay warkaan in maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo si ku meel gaar ah uga arimiyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya